سفر dalxiisa ayaan waxaan uga ambabaxnay degmada Caabudwaaq waxaan u soconaa ismaamulka Soomaalida waxaan hogaaminayaa ugaaska beesasada ugaas Maxamed ugaas Axmed iyo qurbo joog iyo dhalinyaro waxaan u soconaa qabalooyinka kala ah Ceeldibir Dhigdhiko Birgoosole iyo Raqo waxaan soo galnay santarka Ceeldibir oo hoos yimaada 36 qabalo waxaana ka qabanay shir jaraa'id oo ugaasku ugu duceeyay magaalada Ceeldibir waxa kale ay qurbo joogtu sheegeen in waxbarashada iyo tacliinta intaba ay ka taageeri doonaan haday yihiin qurbo joogta ka soo jeeda Ceeldibir wafdiga ugaaska ayaa wuxuu ku hakaday buuraha Dhigdhiko oo u dhaxaysa Ceeldibir iyo Dhigdhiko oo isku jiraan 8 kiiloomitir melu digante sodawo ara sodawo ara waxa hilib nagu qalay ama dhaylo naga siiyay qabalaha Dhigdhiko Cabdikariin Burxan oo ah wadiya rugcada ah waxaana bisinka u bilownay hilibkii iyo baasadii bariiskii caanihii bismillah waxaas arkaysaan oo degayo oo baabuurka isjiid ka saaran waraashika macaawinada ah oo saliidii iyo qamadiga ka kooban ay soo dhigeen ismaamulka Soomaalida waxaana lagu dajinayaa qabalaha Dhigdhiko waxaan hadda soo galnay qabalaha Dhigdhiko waxaana shir jaraa'id ku qabanay magaalada dhexdeeda ugaas Maxamed ugaas Axmed ayaa u duceeyay dadka meeshaas deegaankaas asagoo kula dardaarmay in amniga laga shaqeeyo iyo horumarka deegaanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala intii dhibod Allah subhanahu wa ta'ala intii dhibod Allah subhanahu wa ta'ala intii aan hal sameeyna Allah naga Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa Ilaahay fadal khayr qaba Allah hariisina badri kullu walaalo saan noo sharaftada loo karaameysana noo sooriyayna Allah idin karaameeyo Allah idin sooriyo Allah idin sooriyo Allahumma salli ala sayyidina Muhammad سبحانه وتعالى انت دبوت الله سبحانه وتعالى انت دبوت الله سبحانه وتعالى انت انا سمينا الله نعم الهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا الهي فضل خير قبل الله نسي فضل خير قبل الله نسي حريصين بدري كله العالم سان نو شرفتنا نو كراميسنا نو سوريا سين الله يكرم الله يسوري الله يسوري الله يسوري اللهم صل على سيدنا محمد